nimankaas hor socday bulshada reer Boorame markii aan eegay waxaan ka gartay laba nin waxay ahaayeen wasiiro mid wuxuu ahaa Cabdilaahi Ibrahim Habane Cabdilaahi Dheere oo ahaa wasiirkii hore ee waxbarashada iyo tacliinta sare midna wuxuu ahaa maxamed jaamac abgaal oo ahaa wasiirkii hore ee wasaaradda isgaarsiinta boosaha iyo isgaarsiinta haddaan ku horeeyo abgaal dhowaan waxa aan arkayay muddo dhexdaasa maxamed jaamac abgaal oo isa soo taagay warbaahinta isagoo oo leh war waxaanan garanayn baan cunay bulshadu hay saamaxdo sidii waxa aanu cunay ma macaan baa ma dhiikar baa ma subagow baa ma qadhaadh baa ma dhexdhexaad baa ma waxaan la garanayn baa war waa liitaaye ilmaada reer hallay saamaxo dee haddii uu caynkaa yidhi dee nin weynoo dalbaday in la saamaxo dee waxay ila tahay waa iska xil saarado waxaanu ku nidhi war balta wixii kale kuu dambaynayo wixii dhintay ilaahay baa ka dhaafiye adigu intaanu nool lahay waa ku saamaxnay wuxuu haddana aan dib u arkay isagoo oo haddana halkaa ka hadlaya oo leh reerkayagii baa sidan loo galay reerkayagii baa la baabi'iyey reerkayagii baa saami loo diiday reerkayagii baa dhulka la jiijiiday dee waxaan leedahay dee haddaad wax kaloo cusub doonayso anigu xaaraan odhan maayo afkayga maahe waxaa la nin baa yidhi la yidhi sadohdii buu beri dilay oo gacanta saaray dabeedna waa la canaanto waxaa lagu yidhi waryaahe maxaa kuu geeyey sadohda wuxuu ku yidhi nimayo miyaa iga maqashay sadohdayba adhi iga xadday waxaa la mada xilhay furaan imakana iga maqli maysaan buu yidhi waxaan leeyahay maxamed jaamac abgaal anigu horena dee mala kaagama maqal xaaraan baad cunta aan cuna iminkana ku odhan maayo dee nin weynoo odaya baan ahay dad nin weynoo mas-uula baa tahay wixii hore haddii aad saamaxaad ka dalbatay dee waxa dambe fahmi mayne naga daa waxaa yimi cabdilaahi dheere 27 sannadood baa dalku hortay dawladaha ama 28 buu cagacagaynaya 26 ama 25 intaan hubo cabdilaahi ibraahim habane wuxuu ahaa guddoomiye xogayihii guud ee golaha guurtida malaa muddo 2 sano iyo badhana wuxuu ahaa wasiirka waxbarashada waxa uu iminka shaqo la'aaba waa intan muuse meesha fadhiyo oo aan sanad iyo badh meelahaas weeyaan marka qiyaasay weli ma maqal cabdilaahi ibraahim habane cabdilaahi dheere oo leh saami ka hadlaya weli ma maqal cabdilaahi dheere oo ka hadlaya reer Boorame weli ma arag cabdilaahi dheere oo ka hadlaya Samaroon weli ma arag cabdilaahi dheere oo ka hadlaya gobol weli ma arag cabdilaahi dheere oo xuquuq ka maqan reer awdal hadal haya 26 sano iyo badh maantuu soo tooso cabdilaahi maantana wuxuu sheegay dulmi baahay waanu intaasoo dhan ka hadlayay waxaan leedahay dadka reer somalilan horta xaq marka laga eego dad wanaagsan xaq marka laga eegana mala waa dad xun waayo waa dadka anigoo 10 wajili 10 yaa dhuxulaha namiimka ku dhaca dhuxulaha ninkii gabiye dhuxulaha namiimka ku dhaca dhuxula naareed ninkii dhowr wajile baa jannada looga dhaarbana waa dadka wax allaale waxa doontaa si soo hortaagayso ay nooc wax allaale wax lagala xishoodaanay jirin ee ku oran mar walba ku garaabaya waxaad arkaysaa qaar oranaya anigoo shalayto waji lahaa maanta la waji kala leh labadaba igu amaanaya oo leh waa ku saxsanaa mala dadka yarahan dhikaabta lagu sheegay lagu badan baan u maleynaya iyaga intaas ayaan kaga baxa waxa ka hadlaya maalin dhaweyta waxaan arkay agaasimihii hore ee wasaaradda diinta iyo awqaafta
sheekh salebaan oo hadlaya sheekh salebaan wuxuu yidhi muuse bixi waxaan u sheegayaa inuu maxamuud xaashi u dhiibo kursiga waxaa sababay buu yidhi inuu u dhiibo dalkii baan eegay buu yidhi waa dhex mara meel walba waa mara hudhaaladii qaaliga ahaa waa xidhmeen waxaa camirmay buu yidhi kuwii garowga iyo harakooga laga cuni jiray haddii looba dhiibo kursiga guddoomiyaha baarlamanka haddii kale uu yidhi halkaynu ku waabariisana waa laga sheekayn waxaan leeyahay sheekh salebaanow hadalkaagu ma caddayne fasiraad dambe ku samee haddii maxamuud xaashi loo dhiibo kursiga oo uu fadhiisto ma waxbuu meye ka bedelayaa ma qiimuu soo kicinayaa ma hudheelada qaaliga ahee dadku ka raystay buu furayaa mise kuwa harakooga iyo garowga lagu iibiyaa buu xidhayaa hadalkaagu ma caddaa waxaan maqleen hudhaal baad leedahay shiikh haddii hudhaalka hoos u dhacay hudhaal aad leedahay baa jiray baa lagu yidhi oo magaca leh haddii dee uu hoos u dhacay hudhaalkaagii uu xidhmay ma kuwa garowga iyo bahasha laga cunaabaad laga xidhaysaa markaa maxamuud xaashi wuxuu qabanaya inaad caddaysaa baan doonayaa waa isla intaasaan ku dhaafaya waxaan ka hadlayaa cali qaliib odayga cali qaliib waa nin weyno odayoo ixtiraam iyo karaamu dee mudan yahay waana nin weynoo siyaasi ah laakiin waxaan ku arka waxyaalo badan aanu qalmin hadiya gooraale markuu shirka qabto waxaan arkaa dadku ururay waa xisbi dhacay waa xisbi kaloo dhacay waa nin xil ka soo dhacay waa nin waddan ka soo xidhantay waa nin reer ka soo dhacay waa nin fooq ka soo dhacay dee anigu garan maaya sababtan waxaa kugu ururiyey dadka cisbitaal baa tahay cali khaliifow anigu uma arko dadka kugu urursan inay dadku qalban yihiin maalin walba dad soo daatadoo aad moodda in la soo xadhay sidii xaabada ayaa hareerahaaga taagan adna dee ayaanay kaa dhigin waxaa layidhi 60kii baarlamankii aynu lahayn waxaa ku jiray baa layidhi qoladii reer waqooyi nin xildhibaana waxaa layidhi marka ishuu laga hadlayo wuu seexdaa marka lasoo la dareerana wuu kacaa wuxuu yidhahdaa niyo maxaa laga hadlayay buu xildhibaanada weydiiyaa waxaa layidhi waxaa iyo waxaa wuu muraadalacado canaan buu kala daalaa wuxuu yidhahdaa markii waxaas u dhacayeen maxay toosin weydeen maatii dambaan yidhi war aniga ii daaya dabadeedna baarlamankii baa la yimi sidiisii buu seexdaa waxaa laga hadla in xoolaha soomaalida la kaantaroolo oo la yareeyo dhoofistooda si aan isu ganac jabin sheekadii markii dhexda lagaga jiray buu ninkii toosiyey wuxuu yidhi war waadna calaalataa uune maantaa la ba'ay haddaad wax qabanayso maxaa dhacay buu yidhi wuxuu yidhi baarlamanka waxay yidhaaheen shir guddoonkii xoolihii hilibka xoolaha way joojiyeen ma way mamnuuceen intuu ninkii booday oo uu degdeg intuu saa u xiimay oo hangool qaatay buu shir guddoonkii dabada u qabtay waa la qabtaa ummaddiiba waa qabatay haya lala baaxaa degay war maxaa ku helay maxaa hilibka xoolaa lagu joojiyey hilibka xoolaa maxaa lagu joojiyey war maxaa hilibka xoolaa lagu joojiyey waxaan leedahay dee yaana kaa dhigin maxaa hilibka xoolaa lagu joojiyey nin weyno mas-uul ah oo raggaa madaxweynayaasha la midabaa tahay xaaladdaada miyiriyo cidibo waxba ma diidane istaji baan ku odhan lahayo shirarkanaad marba meel ku qabanaysa iska daa ay dadku ku ururayaan